wax maanta sharaf weyn ii ah in aan fursad u helo inaan daadihiyo madashan dood wadaagga ah ee ay nagu sharfeen wasiiradii hore ee tacliinta ee soo maray dowladdeena. runtii mawduuca aynu falanqayn doono waa mawduuc aad iyo aad u mug leh. maamulka waxbarashada waddan ka soo kabanaya colaad waa runtii arrin aan filayo qof kastaba uu niyadiisa uu ku hayo su-aalo fara badan oo ka haysata oo isleeyahay waaga uu qofkaasi wasiirka ahaa maxaa hawshaa loo qaban waaye. waan ogahay su-aalo badan baa calooshiina ka guuxaysa waa ku dadaalayaa doon insha allah tacaala inaan fursad idin siiyo laakiin waxaan jeclaan lahaa marka horeysa inaad ila soo dhaweysaan wasiirada sharafta badan ee maanta inagu helinaya doodan. iga raali ahaadana haddii af soomaaligaygu tacbaan iska yahay. waxaan rabaa inaan ku bilaabo wasiir ducaale maxamed oo ahaa wasiirkii tacliinta sare xilligii 2014 ilaa 15. sidoo kale waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo wasiir cabdulqaadir xaashi oo ahaan jiray wasiirkii waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare muddadii 2016 ilaa 2017 sidoo kalena ahaan jiray xildhibaan federaal ah. maasantahay. waxaa kaloo insha allah rabaa inaan soo dhaweeyo wasiir cabdulaahi goodax barre wasiirkii hore ee waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare soo ahaana wasiirkii arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta iyo wasiirkii qorsheynta hore. sidoo kale waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo wasiir cabdulaahi abukur xaaji oo ahaa wasiirkii waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare horena uga soo shaqeeyay hay-adaha samafalka waddanka. waxaana xusid mudan oo aan rabaa inaan xuso wasiirkii hore wasiir aadan maxamed cali oo maanta inagu wehelinaya shirkan oo runtii sharaf weyn inoo ah inaad nagala soo qayb gasho. runtii haddii aad dareento in su-aalada mid aad jeclaan lahayd inaad aragti ku darsato gacantuna yeela taag waa ku siinaya insha allah hadalka waa mahadsan tahay. aad iyo aad baad mahadsan tihiin. mawduuca maanta laga hadlaya waxa weeye wuxuu ku saabsan yahay maamulka waxbarashada waddan sida Soomaaliya ah ka soo kabanaya amba ku jira xilli laga soo kabanayo colaad the post conflict waxa la yiraahdo. adduunka haddii si cilmiyeed loo falanqeeyo mawduucan adduunku laba aragtiyood buu ka qabaa. qaarna waxay u arkaan fursad iyo chance fiican inay colaadi dhacdo. chance bay u tahay tacliinta. dhinaca chance-ka uga tahay aragtidooda waxa weeye waxa loo helayaa fursad in systemka tacliinta oo dhanba dib u dhis lagu sameeyo oo dib u habeyn lagu sameeyo. wadamada ka faa'iiday colaadda sibana dhinaca tacliintana waxaa ka mid ah Serbia, Bosnia iyo wadamo Yurub ku yaala saasoo kale ah oo uga faa'iiday inay colaadda ka bacdi markay yiraahdeen dib u dhis u sameeyo systemkii tacliinta ay la jaan qaadeen systemyadii adduunka ka jiray. waxaana filayaa inteena badan maanta shirkan u fadhidaa challenge weyn baan u aragnaa idinkuna ku darsan doontaa insha Allah aragtideena. challenge-ku waxa weeye post conflict-kii amba colaadda ka bacdi waxa dhacaya burbur. systemkii baa burburaya. systemka sokow waxa burburaya xitaa infrastructure-kii. meel aad ka soo qabatay meel aad ku doonbaysana ma garan kartid. su-aasha u horeysa aan rabo inaan soo gudbiyo oo aan u gudbiyo wasiirka. Excellency, wasiirada inoo fadhiya maanta panelkan waxaa laga yaabaa adaa ugu horreeyey inaa wasaaradda soo qabato. marka adaa ugu horreeyey 2014kii. marka xilligaad soo qabatay of course marka xilligaad soo qabatay ma challenge baad u arkaysay mise waxaad u arkaysay opportunity in xilkaas lagu dhiibay xilligaas ay dowladdaasi maraysay. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور هذن iyo dhamaan
مسؤولينتا iyo aqoon-yahanka iyo khiyaarta meesha fadhida. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. runtii waa sharaf weyn weeye burburka kadib in dib u soo kabashada iyo dib u dhiska iyo dib u galaalka qaranka waxbarashadu inay la aamino intana wadada ay aaminaan inay tahay tiirka haddii la mudo nolosha inteeda kale oo dhan ay sheebgaroobayso. marka waa fursad fiican. anigu markii horta inta aan taariikhdan ku hayo dhow ninkii ugu yaraa baan ahay oo wasaaradda qabta haddaan duqoobay oo xoogaa laakiin waagaas beri horey ahayd waxbaa ii fayow marka waxay ahayd runtii aada challengena way ahayd fursadna way ahayd labadaba hal mar bay arrintaa isku ahayd. wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyo hiddaha saddexdaa qolo oo sidii abtirka soomaalida u samaysan weeye oo isku dhex jirjira oo qolo maatee markii la dhaho yaad ka tahaydii weeye. waxaan dareemay aniga wasaaradda oo la kala jabiyey baa qayb la ii dhiibay oo tacliinta sare. haddaad u fiirsataan objective kasta markii la sameynayo iyo qorshe iyo cilmi baaris oo la yiraahdo qofka Soomaaliga ee la rabo inay tacliinteenu samayso saan ka rabnaa shalay waxaan arkaynaa waxaan rabnaa qof muslina oo Soomaaliya. labada markii la isku daro wasaaradood oo hal wasaarad laga dhigo sida hadda ay tahay qofka Soomaaliga ah uu qarsoomayaa. aniga aragtida aan arkay waagaas focuska wuxuu fuulayaa especially xilligan post conflictiga oo dagaalada laga soo baxayo processka dib u qaabeynta ama waxbarashada ha noqoto ama qaybaha kale especially waxbarashada haddaad eegto challenge-yada markii ugu horeysay ee waddan uu burbur ka soo baxayo tacliinta waxay ka bilaabanaysaa tacliinta hoose ee marxaladda asaaska. inta badanna waxaa gacanta ku haya hay-ada iyo bulshada iyo community-ga ilaa dowladdii waa tii la baabi'iyey. innaga keliya ma waa dunidoo dhan iskuul yar ilmo yar halkaasaa la abaaraa. muddo kadib processka kulligiin aad soo wada marteen aad taqaanaa iskuul baa bilowda sare jaamacad haddii dowlad lagu heshiyo dhisanto markaas kadib qaybtaas inta lagu jiro oo dhan oo weli raadkeedii iyo haaraheeda ayna sii hayaan af iyo dhaqan iyo qof la abuurayo oo sida laga rabay ah weli lama gaarin hayaankaa socda. waagaas anigu markii wasaaradda la kala jabiyey qaybtii tacliinta sare la ii dhiibay waxaa la ii dhiibay iyadoo aan xafiisadii iyo shaqadii socotay iyo budgetkii iyo howlihii oo dhan ay ku hareen qaybta waxbarashada hoose. dhismaha weyn ee Soobo ku yaallo ee tacliinta sare oo laakiin la dayactiray $680,000 la leeyahay waa lagu dayactiro loo haysto ayaa hal file la ii dhiibay oo la yiri dhismihiina waa kaa intaasaa laga rabaa nabad allah ku yeelo. waa mahadsan yihiin runtii guddi iyo rag odayaal waaga aada igala shaqeeya hawshaas waa xalinay wasaaraddiina waan degnay. waxay u ekayd wax cusub oo markaa la asaasayo wixii gacantu markaa gaadhay aan islahayn waxbay gartaanoo waa khubaro Soomaali xamar iyo meel kale aan ka keeni karaa la isu keenay bal in la sameeyo list iyo qorshe aragti ah vision maxaan ka rabnaa. waxaa ka mid ahaa dadkii waagaas aan soo ururinay hawshaas wax ka diyaarinayay Prime Ministerka maanta Xamse waa ka mid ahaa. waxaa la diyaariyey dhowr ajende oo ah abuurista qof Soomaaliya. waxaa ka mid ahayd in af Soomaaliga iyo dhaqanka institutionada iyo xarumihii dhaqanka in dib loo soo qaabeeyo lana hormariyo. ajadihii koowaad waxaan ka dhiganay jaamacadda ummadda akademiyadii af Soomaaliga iyo dhaqanka nationalkii ee maxaa la dhahaa museumka iyo madxafka xarumahaas oo isku ag yaallo kulligoodii maktabadda dhammaantood in dib loo qaabeeyo lana hormariyo. ajenda labaad wuxuu noo ahaa oo niri waa muhiim hadduusan waddan lahayna waa iska hutulhamag weli waa geelay wuxuu ahaa cilmi baarista.
waqti tacliinta sare iyo jaamacaduhu aqoonna way sameeyaan research iyo wax soo saar curineed oo maskaxna way abuuraan. waxaan isla garanay in la abuuro frameki maxaa la yidhaahdaa qaabeyn lahaa nooca cilmi baariseed aan u baahannahay dowladda hadday noqotona go-aamada lagu qaato curinta nolosha jihaynteeda. arrintaas marka laisku dubariday oon khubaradii wixii la isla fahmay fulinteeda ayaa ahayd marka challenge-ga dhabta ah. 2014 bishii abriil ayaan u safray Djibouti oo markaas ahayd iftiinka af Soomaaliga hay-ad been la dhihi jiray iyo wasaaradda dhaqanka ee Djibouti oo base ah. communication badan baana dhex maray iyo xiriir. waxaan isla garanay marka in aan heshiis kala saxiixano horumarinta af Soomaaliga iyo in institution laga dhigo af Soomaaliga. meeshaasaan marka heshiis kusoo kala saxiixanay. aan u tegay 14 abriil bishii abriil oo madaxweynaha Djibouti iyo documentiga anoo wado aad u xamaasadaysan baan xamar imid golihii wasiiradan kala dhaxdhacay. waa la ajandeeyay waa la qaabeeyay madaxweynaha xasan sheekh baa marka ahaa documenti baan ka qoray waa la isku qaabeeyay waxaa la abuuray xaruntan aga ee af Soomaaliga professorka uu maanta gudoomiyaha ka yahay Allah u naxariisto professor Afrax nin la dhihi jiray ayaan xasuustaa oo kaalin weyn ku lahaa arrinkaas. qodob ka mid ah qodobadii marka af Soomaaliga wuxuu ku jiraa wadamada xuduudaha ka afafka xuduudaha ka gudba hal dowlad aan ku ekayn Soomaaliya, Djibouti, Ethiopia iyo Kenya. waxaa xiriirna dhex maray laba nin oo wasiiro ah oo aan isku af iyo isku dhaqan ahayn oo Ethiopia iyo Kenya baadida halka naga gashay ee af Soomaaliga ay xuduudahaas gashay hawsheedii muxuu ahaa marka yaanan waxba detailskii faahfaahinta oo sii gelin qodobkaas ajando ahaa. waxaan isleeyahay xarun annaga waxaan marka ku doodnay Djibouti iyo qolihii waagaas caasimadda afka Soomaaliga inuu noqdo Muqdisho inay noqoto. saddexda caasimadooda kale Addis Ababa iyo Nairobi iyo Djibouti waxaa ku nool dad aan Soomaali ahayn. meesha ay Soomaali kaliya degan tahay dhaqankii Soomaaliga iyo Soomaaliga hawiyadiisa ay taalo waxaan niri waa Muqdisho. argumentigaas waa la isku waafaqay madaxweyne iyo golayaasha wasiirada waan ka wada ansixinay. that's why akademiyada aga looga furay magaalada Muqdisho. therefore caasimadda afka Soomaaliga waa magaalada Muqdisho. qodobkii labaad oo isla ereyadaas ku saabsan cilmi baarista iyo dhaqanka iyo kor u qaadida afka waxay ahayd akademiyadeennii tii Soomaaliya iyadoo la degan yahay oo ciidamo iyo madax degan yihiin baa sarwaal jenis gashaday iyo shaati gacmo gaaba all protocoliski waa meel hub yaallo. taliyihii booliiska iyo ciidamada ka haystay waan dhex istaagay meeshii baan maalin dhan markaan baarnay nin xanuunsanaya oday ahayo Allah u naxariisto cabdi tahliil mooye waxaan niri inta kale waxaan u qabanay waqti ayadana waa u shaqaysaa hadda. laakiin meesha ugu muhiimsanayd ee aan isleeyahay challenge-gana ahayd aan welina iloobayna noloshayda waxay ahayd oon focus gareeyay jaamacadda ummadda. qodobada ugu horeeyay xariiqanay in jaamacadda ummadda Soomaaliyeed meeqaamkeedii dib loo soo celiyo. anigu ismaan aqoonin laakiin waxaa jira nin oday ah oo jaamacaddaas rector ka ahaa professor Jimcaale oo raadiyay oo is aragnay meeshu joogaan raadiyay. waxaan ugu tagay guriga hooyooyinka hal qol isagoo ku jiro hal armaajo dhuuban ay u taalo. galab baan meesha ugu tagay Jimcaale ma ku daraa intii aan soo arkay ragga waxaan ugu tagay ayagoo bac ay ku qadeynayaan oo aan haysanin wax kale raashin inta bac lagu soo qaaday. jaamacaddii iyo tacliintii iyo dhaqankii qolkaas aan ugu tagay waxaan niri qori xore meeshani ma aha meeshii oo leeyahay. halgankaas bishii August 2014 ayaan madaxtooyada ku launch gareynay boardka jaamacadda inuu ku shiray halkaas laguna launch gareeyay jaamacadda inay bilaabato. waxaan u malaynayaa imise kulliyood baa hadda furan 14 kulliyadood bay ahayd iyo maxaa la dhahaa kambasyadii oo dib loo soo celiyay. waxaan hadda ku arkay halkan wiilashii shaqaynaya nin ka mid ah oo yiri waxaan ahay ardayda ugu horeysay ee maalinta koowaad aan imtixaanka ka qaadnay.
marka falsafada marka waxyaabaha aan gadaal baan ka sharaxi doonaa markii wasaaradda la isku daro hal wasaarad ay noqoto post conflictiga iyo problemka hadda aan ku jirnay la daaweynayo marxaladda aan marayno xoogga shaqada socoto dhan waxay isugu tegaysaa waxbarashadii primary-ga iyo secondary-ga halkaasaa laga shaqeynaya ayadaa xoogaa waxay leedahay taageero ay hay-adihii caalamiga iyo la taageeraya dhaqdhaqaaq ka socdaa tacliintii sare jaamacadaha privateka iyo dhaqankii iyo afka soomaaliga dhammaan waxaad u malaysaa ajendahan hadda aan ka shiraynay iyona beebaradan wax weyn kuma arag arrinkaasna waa arrin u baahan shirarkan oo kale iyo doodahan oo kale marka aad iyo aad baa umahadsantahay ku hortaal tii hore loo soo qabtay tii ku dhimaneed adoo og sidee mudnaanta u kala siinaysay hawsha ku taal prioritizationka iyo sidee sequencing ma reformka horeeya ma restructuring baa horeeya am sorry of Soomaaliga waa tacbaan laakiin sidee bay u kala horeeyaan iyo sidee baad mudnaanta u kala siinaysay tafadal runtii hodan su'aal fiican weeye dalku su'aal waxaa iyaduba ah taalla hadda taalla post conflict state miyaan ku jiraa oo ma dhaafnay ma ka gudubnay colaadihii oo colaaddu marna dadka khubarada ah colaadaha wax ka qoraa waxay yidhahdaan colaaddu ma aha the absence of war ma aha inaan dadku xabada isla dhacayn colaaddu waa state ka dambeeya yacni nabaddu waa state ka dambeeya calood ka soo koobashadu waa marxalad ka dambeysa xabadda la isku ridayo waa marxalad ummaddu ka heshiiso oo isaga timaado wixii keenay dal burbura dalkeenu runtii anigu waxaan aaminsanahay weli wuxuu ku jiraa marxaladda soo kabashada post conflict ma joogno waxaan joognaa conflict state baan joognaa markaan xaqiiqada si dhab ah u fiirino waa sidaa weye anigu markaan wasaaradda imid xaqiiqdii waxaan isku dayey sida dhakhaatiirtu waxay yidhahdaan waxaa marka dhakhaatiirta la tababaraya waxaa la yidhahdaa do no harm baa la yidhahdaa waxa ugu horeeyo dhakhtarka la baro waxaa la yidhahdaa meesha haddaad timid ka daraha noqon xilli runtiina waxaa nimid lagu jiray doorasho dalku galayay xilli waxaa nimid dhaqaaluhu uu aada uga liitay inta hadda uu joogo marka aniga waxaan isku dayay inaan wasaaradda u sameeyo mar dhoweyto waxaa laga hadlay dad badan oo doctor cabdinuur ugu horeeyo rag badan oo ka hadlay oo dadkii khubaradaha ka hadlay waxbarashada haweenka kalaa laga hadlay hadda anigu waxaan sameeyey waaxda horumarinta waxbarashada gabdhaha waxaan ka dhigay agaasin wasaaradda ka tirsan waxay ahayd qayb yar oo ka tirsan waaxda planninka markaan imid wasaaradda gabar mutacallimada soomaaliyeed baan u magacaabay booshiga oo agaasimo ka dhigay waxaan kaloo isku dayay runtii anigu inaan advocacy u sameeyo waxbarashada soomaalida advocacy wax la yidhaho inaan deeq waxbarasho u raadiyo inaan structureska dowlad ama qaab dhismeedka wasaaradda ka dhigo mid waxbarasho casri ah waan soo gaabinay casri ah horseedi karta oo waxbarasho horumarineed ya waxbarasho horumarineed yani labada marka wax burburaan waan soo gaabinayaa burburku laba macno u leeyahay kasoo kabashada burburka post conflict marka leeyahay laba arrimood baa imanaya mid waxaa connotation waxaa jira waqti lumay oo la rabo in catching up la sameeyo waqti baa lumay ya intii cunfigu jiray dhibaatooyin jiray dagaalku jiray waqti badan baa lumay waqtigaas waxaa la rabaa accelerated development in la sameeyo oo multifaceted aan hal ayn waxbarashada kaliya ahayn waxa caafimaadka waxbarashada dadka dhismahooda dadka in detraumatization of society in la sameeyo dadku waxa weeye waa wada inteena hadda meesha joogta haddii takhaatiiriska xiska dadka kasha ku takhasusay naloo geeyo dad badan oo anagoo badan oo naga mid oo shaqeynaya oo soconaya waa xanuunsan yihin mental health issues baa jira xaqiiqa jidhow waxyaalaha dheereynaya weeye dalku inuu soo kaban waayo intan ana elite baan waxaan representative sample of Somalia waxaan elite baan ya marka waxaan qaybta kale oo ah maxaan ku yiraahdaa soo waqtiga soo celinta waxa weeye in dadkii la dhiso dadkii in la dhiso si waqtigii lumay
looga soo kabto anigu waxaan marka isku dayay in meelaha wax laga wax fiirfiiriya laakiin detailska gadaal ku daray oo maanta wasiiraad baad mahadsantahay si fiican oo soo koobtay sidoo kalena waxaa taabatay arrin aad u muhiim ah runtii kulliba aniga iga dhex guuxaysay burburku waxa ugu weyn uu bulshada Soomaaliyeed yeelay waa maxay ma waxa inoogu darnaa in institutionkeenu burbureen ma waxa inoogu darnaa in systemkeenu burburay ma waxa inoogu darnaa inaan noqonay bilaa dawlad bilaa dhaqaale mise waxa inoogu darnaa horta bal in malaha habka bulshada Soomaaliyeed ay u fakarto in isbedel weyn ku dhacay wasiir goodax su'aalkan rabo inaan ku soo gudbiyo arrintaas u daba socdaa waxaad noqotay wasiir xilli aad u adag COVID-19 na soo maray adduunka oo dhan isbedel weyn ku dhacay sidoo kalena waxaa timi wadankii xoogaa soo yara kabtay oo wax dhismeen wax shaqeeyeen ma kula tahay habka bulshada Soomaaliyeed u fakarayso amba ha ahaato elite-ka amba ha ahaadaan dadka ku jira siyaasadda amba ha ahaadaan shacabkii dadweynaha Soomaaliyeed saameyn ma ku lahayd ajendaha aad lahayd iyo caqabadaha aad la kulantay markaad is lahayd ajendahaas fuli waa mahadsantahay hodan wasaaradda iyo hormuudkeeda iyo wasaaradaha waxbarashada iyo bahda waxbarashada dhammaantood waan soo dhaweynayaa shirkan aada muhiimka u ah haddaan usoo noqdo su-aasha waxaan kusoo biiray wasaaradda wakti unique ah wakti shacabkuna iyo dadweynuhuna si u fikirayo muxuu ahaa dadkii waxbarashada muddada dheer gacanta ku hayay dalladaha iyo iskuulaadka aan dowladdu maamulin waxbarashada aan dowladdu maamulin na si u fikirayaan muxuu ahaa dowladduna aragti gaaban oo hoose ay ka qabto waxbarashada ama ha u keento tabardaro ama ha u keento culeysyo kale oo saaran laakiin meeshaasi xaaladoodu marayso ayaan wasaaradda imid waxaa intaas dheer aniga laftirkeyga bahda waxbarashada kama mid ahayn marka xoogoo waxaan istusiyey inaan la tabin dadka waxbarashada ka shaqayn jiray oo aan bal meesha iska tiiriyo marka waxaan bilaabay inaan su-aalo weydiiyo anigoo kooyto ah oo aan ka tirsanayn bahda waxbarashada ayaa waxaan bilaabay inaan su-aalo weydiiyo su-aalihii waa laga jawaabi waaye yacni waxyaalaha basiga meeqa ardaya waddanka wax ku barato meeqa iskuulaha jirto iskuulaadku maxay kala yihiin muxuu ahaa yaa waxaan baxsho macallimiin meeqaa joogto macallimiinta waxbarashadooda maxay tahay waxyaalaha basiga markii laga jawaabi waayey xoogoo dhiiri ay gashay waxbaaba ka qaban kartaaba dadkii marka meesha joogay runtii oo hadda xooggooda halkan fadhiyo dad aada iyo aada u wanaagsan oo ciil qabay oo rabay wax dhaqaajiyo ayay ahaayeen waa garab istaag weyn ayaa soo baxay iyagana shaqay u soo istaageen waxaan aaminsanahay wax badanaan qabanay marka u horeysa marka waa tashanay si wadajiraan u tashi jirnay madax iyo madax la-aan iyo waxaa kalama lahayd waa tashanay waxaan ku tashanay horta bal soomaalidu waxay tiraahdaa war la helaa tala la helaa aan war raadin warkii waxaan ka doonay adeeg la yiraahdo emis education management information system
waxaa lagu wargeliyey in lagu fashilmay oo world bankigu maalgeliyey 1,500,000 kambani australiana la siiyey fashilmay ayagu laftigooda ku qanceen inuu fashilmay muxuu ahaa mar alla markii wax yar loo baahdo australia la wacay lagu dhibtooday proposal kale oo isla world bankigu meesha yiilay waxay ahayd 500,000 inay bixiyaan laakiin kambani indiana oo india ka tirsanay dabada ka riixayeen oo la wadwaday adigu meeshaas markay marayso xoogaa go-aano adag wasaaradda waxaan u qaabilsanaa wixii aqoona iyo howla iyagaa lahaa laakiin aniga waxaan u qaabilsanaa xoogoo buldozera u ahaa oo meelaha qaarkood ayaan u dardari jiray waxaan islahaa meeshaas ayay tabayeen systemkii rag hadda halkan hadday joogaan maaqaan nin la yidhaahdo fahad iyo tiimankiisa iyo muxuu ahaa ayaan boorama ka soo xadnay soo shukaaminay imiskii australia loo aadayay india iyagaa horta sameeyeen wasaarad badanaa leh hadda imiska qaarna waa ku taminayaan sida wasaaradda muxuu ahaa ii sheeg marka meeshaasaan ka bilowda wixii ka dambeeyey hawsheennu informationaa ogaanay waxa naga khaldanaa ogaanay waxa aan rabna inaan qabanno dadkeedaan haynay hadda waxaan meeshan lagu soo koobi karin oo howla ayaan qabanay waxaan iska falsafada ah oo mataqaanaa soomaali iyo muslim iyo waxa waa iska giving way meesha shaqay rabtay waa saas moogta inaan taagnaano qof muslim ah oo soomaali waxa inaan isku sheegno waa hal mar wey waa wax la wada ogyahay laakiin qofkii sidii loo soo saaray ayaan waktigeenna wakti badan gelinay muxuu ahaa waxaan isleenahay arday badan 12% ayaa iskool tegaysay ardada marka maantana waxaa shan laga dhawaajiyey 24 waxaan aaminsanahay inay ka badan tahay tuul badan oo isticmaalanay ayaa suurageliyay ayaan isleeyahay wax badan oo laga ayaa jiro laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan fursadda aan sii gudbiyo wasiir aad baad mahadsan tahay waad soo koobtay waxaad tiri shaqay u baahnayd shaqadiina hore ayaad ka gasheen marka waa aad baad mahadsan tahay sidoo kale wasiir cabdulaahi adiguba waxaad ku soo aaday xilli xoogaa lays odhan karo way yaro adkayd wasaaraddaas markaad qabanaysay si aad shaqadeedii u fuliso oo sii banaa waddanka xoogaa ay ka jirtay qallaasi siyaasadeed experiencekii waayo aragnimadii aad ka soo aragtay maxaad inooga taaban kartaa sidoo kale siyaasadda isbeddelkeeda constantka ah soomaaliya siibana waddankan hadda aan ku tilmaamayno inuu burbur ka soo kabanayo maxay kula tahay saameynta ugu weyn ay ku lahaan karto waxbarashada marka ay sidaas oo kale tahay adigoo experiencekaada fiirinaya waa mahadsantahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم هذا وسلاميا وزيردا iyo howlwadeenada wasaaradda iyo hogaankooda marti sharafta saaxiibaday wasiiradii hore dhamaantood salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh wasaaradda su-aashii lagu bilaabay saaxiibkay ama walaalkay ducaale wadaad doortay mise horta wasaaradda anaa doortay howlaha guudaa la ii waday maadaama 20 sano aan inkastoo weligeyna macallin ma noqon wasaaradda waxbarashada kama shaqayn laakiin 20 sano hay'ad aan ka shaqaynayay primary ilaa jaamacadahan taageeri jirnay waa ka ag dhowaa oo dee tababaraan qaban jirnay waxbaan qaban jirnay somaliland puntland ilaa halkan markii la yiri hadda wasiira laga dhigayaa oo
xogaa prime minister kan howlaha guud lagu qoro sheegay waxay howlaha guud ma socdo wasaaradda waxbarashada meeshaasaan aniga aan isleeyahay waxbaa ka qaban kartaa meesha lagu qoro marka horta meesha sidaasaan horta meesha aan ku tegey oo markaan imaanayay 3 bilood inaan joogi doono doorasho la geli doono ayaan iska aaminsanayn oo waqti badanba uusan harin laakiin 2 sano ku dhawaatay aniga marka saadaan u imid ardaydii 2029 imtixaanka dhacday oo goodax si ugu dhaganaayeen uu ka fakaday ayagii waalidiintoodii ayaa afkii soo galay maxay ka badaa yimid waxaan rabnaa ardadeena si qaldan baa ayaa baalkii maxaa la dhahay loo riday waxa weeye inaad waa diiday markaa wasiir hore ayay dadka waa dhaceen aniga laakiin inaan daaweyno oo inaysan mar dambe wax sababta keentay inay dhacaan inaan ka fikirno oo daaweyno ayaan horta ajandayga koowaad uu noqday maadaama waqtiga aad iigu yaraa howlwadeenadii wasaaradda doctor cabdalle iyo maxamed cabdullahi guddiyaan samaynay waxaan nidhi waxaan bal ka soo tala bixiya haddii shirar badan iyo dagaal iyo sanadka dambe ha galaan markii dambe uun saan u wadnay waa naga aqbaleen waxaa soo baxday waxyaabo badan oo u baahan in la xalliyo marka oy kow ka tahay waxaa kow ka ahaa maalan sida maalmo ayaantana laga dhawaajinayay iskuulaad form 4 keliya dhiga kuwa form 2 keliya dhiga kuwa saacada wax dhiga oo haddana imtixaankii form 4 imiskii la iska soo gelinayo habraaci marka waxaan samaynay oo imtixaankaan samaynay habraacaas markaan samaynay sanadkii ku xigay waxaan ku guulaysanay in wixii under age ahaa waxaad arkaysaa cunug jira 14 sano oo la leeyahay waa form 4 dadka dhacay marka oo waagaa dhacay waxay u badnaayeen ardaydaas under age-ka ah iyo kuwa la soo dedejiyey oo aanan waxbarashadii si rasmi ah aanan u soo marin shalay haddaa statistiskada ka arkayseen ardaydii gashay 2021 iyo 21 baa badnay 22 baa yaray waxaa sababay ardadaasoo dhan baa ayaa waxaa ka baxday aan daaqad kala baxnay dagaal badan baana qabsaday tan iyo xildhibaano laakiin waa ka guulaysanay markii dambe meesheenaan ku adkaysanay haddana waxaan rajaynaynaa in baadkii challenge-gaas ah midka labaad oo aan la kowsaday haddana wuxuu ahaa maamul goboleedyadii iyo dowladdii federaalka oo aan heshiis ahayn juhdi badan baan ku bixinay waa isu keennay 2 shir baan qabannay si waxbarashada loo daadijiyo haddii waqtiga baa igu dhammaaday iyadoo shir saddexaad galmudug aan maqaya wasiirkii na ballamiyey aan u ballansan tahay arrintaasna waxaad moodaa annagoo ku dadaalaynay in shahaadada marka ugu dambaysa laga qaato maamul goboleedka inaan dhisno de wixii markii la siyaasideeyey oo wada fadhiisanay waxaan idhi waxbarashada siyaasad ma gasho jiilka yarkaas kale siyaasaddaan ka saarno maxaan siyaasad ooga saari karnaa waxaan oga saari karnaa inaan samayno examination board oo federaalkii maamul goboleedyada ay ku jiraan asagaa standardskii iyo imtixaankii hadhow kormeeryaal buu dirsanayaa laakiin maamul goboleedka imtixaanka qaadana number 2 manhajkaa la isku haystaa iyo syllabuska ayagana guddi inaan samayno oo manhajka inta la guddi oo federaalka iyo maamul goboleedka intaan samayno ayagana manhajkii ay ka soo tala bixiyaan sidii la isugu dari lahaa problemka ugu weynna waa dasaatirta jirta waay siyaasad ma aha maamul goboleed walba dastuurkiisa waxbaa ugu qoran inkastoo manhajka dastuurkeena uu qorayo in maxaa la dhahayay dowladda federaalka leedahay laakiin syllabus kuma jiro maamul goboleedyada qaarkood waxay ku doodaan syllabuska annagaa samaysanayno imtixaan midaysan hadhow lama qaadi karo shahaadadiina waxaa la rabaa inay mid noqoto challenge-gaasna waxaa weeye waa isagana waa xal buu ku dhawaa waxaan rajaynaynaa wasiirka cusub inuu
waxbarashadiisa loo daadejin lahay hawsha uu ka shaqeeyo midka saddexaad oo haddana isagana aan injiga wuxuu ahaa soo kobaa wuxuu ahaa macnaha waxbarashadii oo tijaaro laga dhiganayo oo ardaygii lacag laga rabo oo maamulkii lacag oo iskuulkii lacag laga rabo oo macallinkii lacag laga rabo oo baalkii maxaa la dhahay cid walbaba lacag la rabo in laga aruursado oo taasna ay sababi karto in iskuul wax aadaba la waayo oo maamuladii ay rabaan inay wax sameeyaan ayagana dagaal baan ka galnay waanu ku guulaysanay sidaad qabatid ood maanta kula talin lahayd wasiirada jooga in ay ku dhaqaaqaan amba qabtaan ood u qabtaan inay tahay caqabad amba fursadda ugu weyn ee hortaagan amba hortaalla waxbarashada soomaaliya waxaan ku bilaabaya wasiir cabdiqaadir bismillah waxaan isleeyahay waa soo gaabanay aad aan usoo gaabanay waxaan isleeyahay aad baan u jeclaan lahaa inaan sameeyo ay ku guuleysto national education policy iyo legislation dawli ah oo sharci ah oo jiheeya waxbarashada dalka labadaba ma suurogelin runtii waqtiga iyo resourceska iyo infrastructureka aan haystay oo ama ha noqdo human infrastructure ama ma ogtahay dowladdii aan kuu sheegay oo ku jirtay xilli kala guurahoo lagu jiray doorasho lagu jiray runtii dowladduna ay halkaa ku jeeday baan runtii kusoo aaday marka haddii waxaan regrad garanaya jirto taas waa bismi illaahi raxmaan raxiim waxyaabaha igu taagan ee aan isleeyahay haddaad sii jiri lahayd saad wacdaraha dhigto waa la ogaan lahaa haddana aan rabo inaan wasaaradda dhagahooda ku rido nidaamkan tacliintu waa laba qaybood qaybta hoose hadday internationalkii noqon lahaayeen iyo n g o iyo communitiga iyo dalladaha xunbaa ka socda dadaalla ah hagaajin iyo horumarin iyo ballaarin bay u baahan yihiin qaybta sare oo jaamacadaha iyo dhaqanka iyo afka waxaan dowlad ahayn oo qaabeyn kara ma laha halkaas waxaan dareemahayaa inay gaab iyo baahi ay ka jirto fiiriya soomaalida waxaan sheegay 4 dowladood soomaaliya iyo saddexda waddan ee kale meel kale a jirto oo ah diasporada iyo dadyowga soomaalida tirada badan oo duurka ku jira ee caruuraha iyo waxaas laga cabaaday kulli waxay u baahan yihiin aragti iyo policy qaabaysa dadnimadooda iyo jiritaankooda arrinka muhiimka ah jaamacadihii waa tii saaka la lahaa kor bay ka raran tahay tacliinteennu hoos bay u yaraanaysa waxaasoo jaamacad ah oo ilmo iyo dhalinyaro iyo soomaali ay ka qalin jabinaha dhiganayaan oo nidaam xeerinaya iyo aragti xeerinaysa aanay gacanta aan lagu hayn macnaha waxa weeye dad iskhiyaamayaanna waxbaan baranayna laakiin waxma baranayno caruurta waxbay noo dhigtaan wax ma dhiganayno arrinkaas marka waxay u baahan tahay hagayaal sharci iyo nidaam iyo way ugu taagneyd welina way ugu taagan tahay marka walwalka halkaasuu iga haystaa oon jeclaan lahaa in jaamacad wasaaradda iyo guud ahaan bahda waxbarashada iyo dowladdaba focuska la saaro mahadsantii aniga kolley markaan meesha aan ka tegay waxyaabihii igu taagnaa oo horta waxaa ii soo baxay shuruucda sharciga waxbarashada waddanka ilaa hadda sharci waxbarasho ma laha wax hadda la sheegayo waa una shimbire waysa sharciga waxbarashada 2017 September baarlamaanka laga hor akhriyay 4 sano iska yaalay aniga markaan tegay wasaaradda waxay dhahay sharciga aaway waxaa la sharci baba jiraba intuu jira baarlamaanka ku jira sharciga hadda waxaa baarlamaankii aqalkii hoose 2021 February uu maray waxaa lagu soo aaday siyaasaddii iskhilaafsaneed ay sheegay aqalkii sare iska xirbay anoo aan horta waxaan ku talin lahaa in horta sharcigaas haddii amendment lagu sameynayo haddii kalaba in aqalka sare la mariyo madaxweynahan uu saxiixo siduu waddanka horta sharci uu u yeesho midda labaad siyaasado badan oo la develop gareeyaa jiro bahda waxbarashada waa sognahay wasaaradda waxay ku jiraan khaanaday ku jiraan lama dhaqan gelin qadiyadaasna wasaaradda wasiirka iyo waxaa ka mid ah sharciga مثلا haddaan soo qaad sharciga macalinka siyaasadda macalinka waxaa ku taalla mishaarkiisa inuu la mid yahay ii sheeg maxaa la dhihi jiray shaqaalaha dowladda ee payrollka ku jiro
cid baalki maxalla ma mishaarkiisa yar waa tii baalki maxalla barbuleem ka taagnaa fulinuu naga rabaa maxaa la dhihi jiray siyaasadda maxaa la dhihi jiray waxbarashada asaasiga ee degdega ah oon manhaj u samaynay oo lagu xalinayo iskuulaadkan iska furan ilaa fasalka 8 ayadana in la hirgeliyo oo ardayda aanan iska qaadan number 2 waxaan soo saarnay baalkii maxaa la wareegto dugsi sare form 1 ilaa form 4 inaan ardayga la buutin karin arrintaas si fiican loo dhaqan geliyo si waxyaabaha baalkii maxaa la dhahayay ustaad goodax waa ku mahadsan yahay emiskii uu bilaabay waxaan rajaynayaa sanad dambe ardayda Soomaaliyeed ee form 1kii markii la bilaabay soo bilowday ilaa form 4ka inay bartami doonto hadduuba sanadkan ba ahayn kadib arday dibadda ka soo bedeshay ama Soomaaliland iyo Puntland maahe arday kale aan la gelin karin arrimaha siyaasadaha yaalla iyo shuruucda in la dhaqan geliyo oo meelaha waxyaabaha ka dhiman la mariyaan soo jeedin aad ma santahay wasiir goodax waa mahadsan tahay waxaa weeye waxaa fiican wax badan oo fara badan oo wanaaga oo shaqaa ayaa taaba qaaday oo adress garaynaya mashaakilka ugu waaweyn ee waddanka haysta dhinaca waxbarashada sida muxuu ahaa accesska yacni sida muxuu ahaa quality-ga macalinka 26,000 oo macalin ayaan sambal ka qaadnay 1,800 oo macalin waxaa soo baxday 4% ayaa baastay marka haddii sambalku uu ahaa representative waxaa kuu muuqato in macalimiinta Soomaaliyeed ardada maanta hortaagan 4% ay qualified yihiin waxaan develop garaynay oo jaamacadda ummadda aan qandaraas ku siinay inay develop gareeyaan muxuu ahaa tailored muxuu ahaa curriculum oo macalinka lagu soo qaadayo tayadiisa waxaan duubnay duruustii waxaan diyaarinay macalimiintii waxaan hire garaynay zoom classes shaqadaas inay socoto oo macalinka maanta jooga bal ku kala qorta yeelkadeed asood oo tababaranaba kaas qoranaysaa kan hadda carruurta hortaagan inay socoto classeska dhismaha ku socdo weelku markuu faaruq noqdo ayaa wax kala loo karaa lacago badan oo la allocate gareeyay wasaaradda markaan lacagahan internationaliska ee waxbarashada ee markaa u shaqeynayay waxay ahayd about 30 million meelaas markaan ka tagayo 485 million ayaa u shaqeynaysay waxbarashada oo team dhan oo mataqaanaa delivery unit aan u bixinay oo daba taagan oo internationaliska lacagtii commitmentiga ka qaado waqti go-an in shaqadii lagu qabtay ay tahay qandaraaska qofka la sii daba soconayo muxuu ahaa wasaaradda dadka ka mas-uulka daba soconayo oo ka shaqaysiinaa jiray waxaan malaynayaa habacsanaan meeshas inay hadda jirto tiimkaas inuu kala tegaan ka warqaba waxaan jeclaa lahaa weelashan faraha badan oo lacagaha internationals ku jiraan world bankiga iyo EU-da iyo muxuu ahaa waxaasoo oo fan GPE-da iyo lacagahaas in la faaruqiyo oo wixii shaqada ciidan la qabto si weelku wax kale u soo galaan waa laga maarmaan laba shay oo kale muhiim ah jiro oo runtii su-aashaada aan rabay inaan haddaanan dhihin aanan ka jawaabin waxaa jiray shaqo aan wadnay wasaaradda oo muxuu ahaa dowladda Kuwait aan la wadnay oo initiative-kuna dowladda Kuwait ay ka timid annaga aan samaynay qiimeyn waxaan u baahannahay 10 sano soo socoto mushaar macallin ah u badnaa inaan secure garayno waxbarashada salkeeda 1 bilyan iyo 800 oo milyan budget ah oo 10 sano ah oo dowladda Kuwait ay nala qaadatay Kuwait fund loo dhiibay translate gareyn 3 luqad lagu turjumay 94 dal ay ballamiyeen in muxuu ahaa
ay kala qayb galaan muxuu ahaa dhaqaalahaas ururinteeda. Covidkii aa nagu yimid oo dhibaato ka timid, muxuu ahaa shiikh dee dhinac Soomaali ka ahaa oo Kuwait madaxdu ahaana waa naga dhintay, allah u naxariisto. meeshaas habcasanaana ka dhacday weliba dhinaceenna, maxaa yeelay shaqaalihii ka shaqaynaya waxaan la socdaa nin fariidahoo shaqo badan oo mataqaanaa Kuwait noo joogi jiray, iyo mataqaan labada urur oo islaamka iyo carabta ee waxbarashada wakiil nooga ahaa cosaam la yihahdo. waa sax wasiir. cosaam hadda inuusan nala joogin aan fahmayaa. big mistake waayo arrintaas. waa jeclaa lahaa inaan taagnaado oy meel ku dhammaato. Kuweydiintu markii ugu dambeysay aaday noogu heelanaayeen. qorshe cadna waa waxaynay iyagana effortay sameeyeen oo intaasoo adduunka oo dhan ay marti qaadeen. taa in la daba socdo waa ku taaminaya. waa mahadsantahay wasiir. midda u dambeyso sax. UNESCO goor dambaan isku soo biirnay. conventions 4 oo bending nagu ahaa, 2na waa sameynay markii ugu dambeysay, midna baarlamaankay oo dhex tiilay. waxyaabahan kala shaqaynayna waxaa ka mid ahaa zoonahan muxuu ahaa baarlamaankii hore iyo inta xeendaabka ku wareegsan oo dhan in loo bedelo museum, muxuu ahaa museumka civil work Soomaalida yiraahdo, si caruurteena iyo caruurta ka dambeyso ay u fahmaan wixii dalka saan u kharabnay. baarlamaanka hadda siduu u yaalla in wax laga bedelo la curate gareeyo asoo sidaasa hoos loo qodo sida UNESCO u qodan tahay. waxaan isla tilmaannay meelihii mataqaanaa aan fanka ka rays garayn lahayn. waayeel oo noo ahaa wakiilkeenna muxuu ahaa UNESCO waan ka qaatay saan u malaynayo, ragga naga shukaansada arrimaha dibadda oo aada u daba socday, laakiin nasiib wanaag weli wuu joogaa Paris. shaqadaasna in la dhammaystiro qiimo weyn ay leedahay. waa mahadsanta. aad baa mahadsantahay wasiir, maasha allah. wasiiradda aad baan ugu mahad celinayaa. aad baad maasha allah u noot qaadanaysay. wixii insha allah idinku dhimana waa sheekaysan kartaan. wasiir aadan maxamed cali isna gacanta uu inoo taagay. hawl baa ku dhimanayd baan filayaa ilaa hadda inaan qaban, marka waa lagu keenay microfonka. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه عاد بعد سنتين شلي هي ما انتبه وحي قالوا دقيسان إلي وحورا تلو قيمة له ومستقبل كينا دحر أنه كرامة هايين أنوكو هدان دقيستي شلي وما انتي دقيستي waxaad moodaa anigu nin ku soo barbaaray baan ahay kacaan isku mentality bihi. horta marka ugu horeysa raalli idinkoo iga dhawaraya aad baad u gaabinaysaan, waayo xanuun bayna ku dhacay. hadda marka wasiiradu ay keenayeen dhibaatadii dhacday ay ka taataabanayeen ama shalay laga hadlayay, waxay ahayd inaynu si degdega aynu tilaabo u qaadno. haddaynu hadda miirsanay oo soo noqonnay, waxaan u soo noqonayaa Jabbaan. misaal baan u soo qaadanayaa Jabbaan markii nuclearka lagu dhuftay markii warshadihii laga markaa Hirohito boqorka uu ahaa wuxuu isugu yeeray amiiradii, wuxuu isugu yeeray wasiiradii, wuxuu isugu yeeray generaaladii, aqoon-yahanadii jaamacaadka. wuxuu yidhi arrinta waa u jeedaan, macnawiyan waa burburay, dhaqaale ahaanna waa burburay. adduunka inaynu ka harayno bay u muuqataa. maxaynu ku soo noqon karnaa? su-aashaas
oo iyadana inaynu isweydiino ay ahayd baa la isweydiiyey haddii laga dooday laba degdeg loo qaatay waxay yidhaahdeen kow waa inaynu bani aadanka human resource waa inaynu dedejinaa oo soo saaraa see u soo saari karaa waxay yidhaahdeen commercial education tacliinta qasabka ah in la qaato teenna oo dhan dadkeenna aan wax akhriyin oo wax qorin oo hadda jooga kulliba in ololo lagu qaado oo la soo celiyaa horta marka ugu horreysa bani aadanka khadkiisa la qaado dad baa wax lagu noqon karaa waa in dadkii la soo ceshaa qodobkaa waa la qaatay jabaan teknolojiyada maanta ay gaartay oo maanta masaabiirta yaryarkaa ay alinayso fikrad qodobka labaad oo ay qaadatay waxaa ka mid ahaa warshadaha waayo maanbaawarka shaqeeya hadda lacag waxaynu ka hadlaynay tacliinta in la soo qaado lacagtu see ku timaada warshadaha ugu muhiimsan cashuur la ururiyo lacag ma noqon karto xoogaa cashuura la ururiyey tacliinna laguma riqi karo dalna laguma riqi karo waxaa lagu samayn karaa dal warshadaha waa fikrad aanu qabno anagu waxay yidhaahdeen fikrada aynu warshadaha qaadano see u qaadanaa laba meelood aan ka bilo caruurtu waxa ay jecel yihiin warshadaha caruurtu jeceshahay iyo warshadaha haweenku jecel yihiin u fiirsan labadaas ay cabbaarayaan labadaa warshadood oo nooca labadaa warshadood nooc raalli gelisa waad aragtay alaabtada yar lagu cayaaro caruurta ugu cayaaraan waxyaalaha la qarxiyo waxyaalaha caynkaa la samaynayo dabaaldegyada baabuurta yarkaa iyo ordaya waxaasoo dhan sidaas fikradaasay ku bilaabantay innaga maanta waxay ahayd inaynu qaadanno horta marka ugu horreysa maantay tacliinteenna commercial ka dhigno ka fikir ahaan waayo qodob ajendada ku jiraa laaya aragtida fog baa la yidhi sanadkan iyo sanadka soo socda laga hadli maayo wixii shuruuc bay gelayaan idan marka way aragtida fog in la yidhaaho waa la yidhi marka way noo qoran tahay ajendada waa inoo ku jirtaa laakiin horta inaynu qaadanno sidii lacagta lagu heli lahaa baadiyaha xoolaha nool annaga markii noogu dambaysay kacaanka statistic la qaaday ragga halka ay fadhiyaan 72 milyan oo neef inaynu leenahay baa statisticada ay ku soo baxay abaaraa dhacay dagaalaa dhacay dadkii magaaluu soo galay xoolihii ka soo qaaday inay burbureenba maxaan odhan lahaa maxay tahay baadiyaheenna 8 gobol 8 maamul aan ka soo qaadno ama 7 maamul ama 6 maamul hadda baaqi maamul baynu leenahay ya iska dhaafne maamuladan ama 8 ba gaarsiin hadda aragto kuwa kale soo socdaa jireen 8 gaarsiin iyo muqdisho ku dar 8 maamul haddaan qaato 8 warshadood oo hilbaha xoolaha ah waa badiyaan jiraa oo qaato 8 warshadood oo hargaha ah oo qaato 8 warshadood oo kabaha ah ilaahay baa ku dhaarshay meeqa warshad baa halkaa ka soo baxay badiyi oo xoolaha kan nool oo aynu dhoofino iyagoo nool oo warshad ah aynu warshadayno oo hilbihii warshadayno oo hargihii warshadayno
oo kabihii warshadayno lafa iida iyo uuska iyo waxa iida kow badda ii dhig afar haddaynu qaadano toddobadii maamul qaadano oo aynu qaadano 7 warshadood oo kalluunka ah 7 warshadood oo aan kaaning ka samayno tuunaha ka samayno iyo baraka aynu ka samayno meeqay noqonaysaa aynu ka samayno waxay noqonaysaa waxa weeye intaa ibisa ka shaqayn kara haddaynu beeraha aadno haddaynu warshadihii sonkorta soo celino oo warshadihii dharka soo celino oo warshadihii bariiska soo celino oo kuwa burka iyo baasada soo celino oo kuwii saliidda soo celino oo kuwii labanka carrada madowda afgooye iyo barlamaanka aynu shamintada aynu raadinayno carrada tan madow la dubo oo lagu dhiso dalka lagu dhiso oo aynu samayno maxaa dhacaya dalkii oo dhan intaasoo dhan waxaa dhacaysa waxa weeye isbeddel dhaqaaleheen oo dhan wuu isbeddelaya waxbarashadeennii way isbeddelaysaa ilaa aynu samayno marka raggiina kan dadka halka jooga oo dowladda tan hadda maantay xasan sheekh inuu fadhiyo baa fiicnaan lahaa sitawejinkaa waxa weeye in ay fikraddaa qaataan wataan lahaa isku mentality miyihin waxa weeye isku caqliyadaynu ku fakaraynaa waxa weeye waa gurguuranaynaa fikradna waa qabnaa marka waa riyoonaynaa riyo wax laguma wado waxa lagu wadaa dynamics dadku noqdo baa wax lagu wadaa ما شاء الله ما شاء الله أدب آدي أدب ما سنت جزاك الله ألف خير ما شاء الله تبارك الله أدب وينوي فيه runtii maanta dhan haddii aan microphone ku siino panel caadi keligaa ku qabano saasaan door bidi lahaa laakiin waqtigaa inaya wasiiraduna aad bay mahadsan yihiin waxaana filayaa su-aalo badan baa inaga waxay waqti badan ma haysano marka 3 su-aalood baan idiin ogolahay kootada gabdhahana waa inaan asteeyaa marka saddex baan ka dhigayaa hal mid waxaan siinayaa gabdhaha labana waxaan siinayaa ragga maasha allah 9% baa tihiin tafadal bismillah horta su-aasha meesha imaan kartaa waxay tahay wasiiradu inay joogaan waa fiican tahay laakiin waxaa la yaab leh 2013 ee shirweyne saan u kala la qabtay waxaa la bilaabay in la bilaabo siyaasadda iyo xeerkii iyo manhajka waxbarashada in tala laga jeediyo hawshaas waa ka qayb galnay dadkii hawshaas hogaaminayay waa joogaan laakiin waxaa la yaab leh in manhajkina la soo saaro siyaasaddii iyo xeerkiina dib loo dhigo mas'aladaasi eedeeda cid dhale in la soo saaro waa jeclaan lahay maxaa yeelay siyaasaddaa horeysa xeerkaa ku xiga kadib aa manhajku imaan karaa marka mas'aladaasi waxaan is leeyahay waa eed taagan mas'alada kale ee wasiirka aadan waxa uu sheegay waa runtii iyadana mushkiladda ka taagan waxay tahay badda aan leenahay 3,333 kilomitir xeer aan uga faa'iidaysano dekada uga dhisano warshada uga dhisano dalka uma samaysno ma lahan jid 1 kilomitir oo loogu talagalay in uu maro marka mushkiladda dalkan haysata waa xeerar maadaama aad wasiirra tihiin aqoon-yahan tihiin odayaasha aadanna joogo dalkaanu xeerow u baaba'ay sidaasaa muuqanaysa waanu mahadsantahay aad baad mahadsan tahay su-aalada hal mar baan wada qaadanayna kabacdi jawaabta u gudbaynaa gabadhii waan hayaa gacan ka dheer weli maan arag marka tafadali su-aashan waxaan u malaynayaa waxay ku fiicnaan lahayd wasiirka cusub laakiin waxaa joogaa wasiiraddii bay joogta waxay ku aadan tahay higher educationka maasha allah wadanku wuxuu leeyahay 10 jaamacadood bil kastana waxaa ka soo baxa
kumanaan arday meeshii ay muxuu ahay faa'iido soo kordhin lahayn iyaga culays mar labaad reerka kusoo cesha oo mid walba wuxuu rabaa inuu helo shaqo xafiis oo la fariisto waan la helaynin marka suurtagal ma tahay tuulooyinka iyo meelaha fogfogna inta badan waxa waaye ma lahan cid ka shaqaysa ma laha marka suurtagal ma tahay in muxuu loo sameeyo required looga dhigo in ay sanad ka soo shaqeeyaan tuulooyinka iyo goobaha fogfog si ay muxuu ahaaye markaas ka bacdi shahaadada la siiyo si ay hadhowta waxaa laga yaabaa qaarkood inay ku guursadaan qaarkood inay magaalada jeclaadaan oo isa soo noqon oo u shaqeeyaan iyo in required ayadana looga dhigo in 6 months ugu yaraan la siiyo xirfad ay ku shaqaystaan maadaama xafiisaan loo heli karin maasantahay aad maasantahay walaal si fiican u fahanay xagga dambe gacmo badan oo aad u taagan ma arko xagga hore tafadal بسم الله الرحمن الرحيم وزيردنا شرفت له وسلامية وغور وزير كاني بريسماتكي أنت مدرسة الدكتور دمبا عندكم سلامية سلام سلام مقعي وحلي رضا دكتور إبراهيم دقان علي بهذا بيرهان وانا هي بهذا برشدان وانا وحد ما ليس هذا تكتب ما أنت لبا الرمبان قبايو مدوا ومد الدولة نمدا كسابسان يو برشدان iyo maamulkeeda midna waxa waaye cinwaanka oo ah maamulidda marka su'aal baan soo aragti iyo su'aal marka hore waxaan rabaa wadankan uu wadan jiro waaye haddaad jubbo tagtid maanta jubbo waxaad arkaysaa dhismo taagan oo waxa inoo furan su'aal waa u soo socdaa waxaa laga sugaa mucaawino wadankan waxaa maalin walba u taga Nairobi iyo meelaha kaleeto NGO-yada waxaa la sameeyaa waxa la yiraahdaa CAP abiil oo lagu abiil garaynayo Soomaaliya in macaawino la siiyo waxaa lagu qarash gareeyaa markay ugu yar tahay 2 billion maxaa annaga noo waayay wasiiradan leeyahay aqoon leeyahan waa leenahay mashaariic qoran kara baahideenna ku salaysan maxaa looga sugayaa أجنبي قريجين إنه نردسه وأنا أنو دسوين ولو إما ويني مشاريع وحبرشة إن باهيدة إن كترجميسة أنو ويني تاس أيها لجربا سببته وزير والمركوي مادن تيم قبيل كيسا مرير كيسا وكان صدا وحا دتك فرسمية كان كأقونتا وإلكوها مكين يمش أقونيها كانوا وجوجا wiilal yaryar oo agaasimo ka bilaabaya shaqo iyo wasiir halkay aadayaan waxa xaqiiqaha waxa wadankeenu u baahan yahay waxa waaye aqoon farsamaysan oo maamulka waxbarashada maamulkeeda xilligan colaada oo ay sameeyeen dad aan ehel u ahayn sida looga bixi karo waxa waaye in maamulada la qaabeeyo structure ahaan loo dhiso loo sameeyo board of governors oo iskuuliska waxaas waxaa looga bixi karaa keliya in laakiin su-aashu waxay tahay diyaar mu yihiin wasaaraddu waxbarashada asalaamu calaykum waraxmatullah su-aaladii waan haynaa wasiiradan usoo su-aasha isleedii waa ka jawaabi kartaan ka jawaaba waqtigan inoo soo kooba بسم الله الرحمن الرحيم سؤال شيء أوضم بيسانيكاس وقال الله شيء بالكان coordinated abilities كاي سميان سوالي وسميان وحانو لسو رجلان هي وقال الله محفوظ ويرمت لكن وحاولي وزير أما الدولة شعال مجرته نقولوا كروح أما يقعنته وصدان أما وحقوقه يعني وتخطيطيان مجرى لكن سومالي وليس عن شيء وحقوق جرتها وقت عنفي وكجرتها annaguna cunfiga inaan ka baxno runtii kama shaqeyno waxaan u aragnaa opportunity baan hadda maaragtay abaar waa baaba'ayaa hanala ka soo gaaro waxaan ahay dad runtii baahida aad u aqbalay nin waxaa jira la yidhaahdo Richard Burton 1843 Soomaaliya 43 53
1976 baa noqday fooma noqday marka waxaan u baahannahay inaan runtii ka shaqayno wax alla iyo wixii aan qabsan karra inaan qabsanno wax alla iyo wixii annaga aan samaysan karra inaan samaysano xornimo iyo dowladnimo heli mayno iyo istiqlaal iyo madax bannaan sovereignty wax la yidhaaho ma helayno haddaana annagu wax yaroo aan haysanno aanaan yacni iimaansan oo kordhisan qof gacanta u hayo weligii horumar ma gaarayo adduunku maanta wuxuu aadayaa u gudbayaa hodan warkiitan ku dhamaynaya wuxuu u gudbayaa hadda waxaa la yidhaahdaa maalan s d gs iyo m d gs yaa laga hadlaya m d gs iyo s d gs dad baa samaystay adigu maad samaystay meesha lagu sameeyey adigu maad fadhiyin haddaad fadhidana waa sacbinaysa keliya maxaa loo sameeyey waxaa loo sameeyey aniga iskuol aniga aan aaminsanayn oo aada ugu aaminsanayn laakiin waxyaalo xaqiiqi oo runa ay maaragtay sheego waxaa jira school of dependency la yidhahdo marka laga hadlayo political science-ka horumarka marka laga hadlayo dependence theory waa iskuol maaragtay leh conspiracy theory badan buu leeyahay waxyaalo badan oo la sameeyuu leeyahay oo aan run ahayn laakiin xigmaddiisoo dhan waxaa weeye adduunku horumaray wuxuu rabaa adduunka hadda aan horumarin inuu weligii uu ahaado mid asaga u baahan ya weligii sidaa inuu ahaaduu rabaa ma laga bixi karaa waa laga bixi karaa yaa ka bixi kara qofkii raba inuu ka baxa ka bixi kara laakiin qofkii raba in maalin walba uu kiish buro qaato weligii sidaasuu ahaanaya marka waxaan u baahannahay annaga inaan isku wadno dhibaatada ka dhalatay burburka iyo dhibaatada iyo baahida ka timid iyo rabitaanka inaan ka baxno waxaas oo ka guurno in la isku wadaa la rabaa waa mahadsanteed waa mahadsantaa waktina waa nahayaa sida sheegay marka sharciga waxbarashada waktigan aan wasaaradda joogay ayaan waxaan geynay muxuu ahaa intaan dhammaystirnay ayaan waxaan geynay baarlamaanka baarlamaankeenna siduu u shaqeeya waxa weeye akhrin koowaad iyo akhrin labaaduu maraa akhrinta saddexaad waa lagu codeeyaa waa lagu ansixiyaa akhrinta koowaad iyo kii labaad ayuu maray shuruuc badan oo kalena waa la geynay oo muxuu ah kuwii unesco conventionskii unesco waxaa kaloo la geynay muxuu ahaa sharci inaan baasgarayna ahayd oo iskaashiga turkiya iyo soomaaliya oo mar walbaba in muxuu ahay la mariyo baarlamaanada ay tahay waxaasoo dhan waa qabanay ana waxaan aaminsanahay shaqo fiican la qabtay hadda hadduuba sanadka maraayo waa soo dhowaaday laakiin waa runtaayo waa muhiim in sharcigu uu fariisto waxaa kaloo muhiima oo aan fari ka qodnayn functionska iyo roolka iyo responsibilityga maamul goboleedyada iyo federaalka waxbarashada markay tiraada say u qaybsanahay iskuulkan yaa mas-uulka ah ardayga yaa mas-uulka ah ma federaalka mase muxuu ahaa stateka muxuu ahaa manhajka yaa mas-uulka ah imtixaanaadka yaa mas-uulka ah waxaasoo dhan waxaa la rabaa aqalkan golaha sare la yiraahdo inay soo curiyaan iyagoo khubaraadooda adeegsanayo ay hawsha qaybiyaan ay u soo codeeyaan usoo gudbiyaan aqalka golaha shacabka si mataqaana ayaguna ay ugu codeeyaan sharci u noqdo oo markaa loo ogaado cidda iskale mas-uuliyadda hadba functionka waxbarashada markay tahay arrintan kale oo muxuu ahaay internationaliska sideedaba waxaa ogaataa dal sideenoo kale markuu jabo gurmada u baahan yacni dad isku filan adduunka intay burburaan dhulka galaan haddana isku filan ma jirto su-aasha meesha jirto oo dhaleelaysid saan qiyaasayo waxaa weeye seen oga faa'iidaysanaa muxuu ahaa supportiga adduunkuna siinaayo annaga wasaarad ahaan berigaas aan maskaxshiil u samaynay waxaan dantuna tustay inaan la xisaabtan adag oo dhib badan oy nagu dhibtoodaan oo waxaan rabnana ku mintidno wixii aan ku heshiinana aan ka dhalaalino inaan samaysano waxaan u marnay inaan samayno team la yiraahdo delivery unit oo iyagana kaalmo u ahaa xoolahooda meeshay galayaan si ay ula socdaan annaga iyo dowladda soomaalida mas-uuliyiinta oo prime minister ku koreyn miiskiisa soo fadhiyo ayuu wuxuu ogyahay iskuulka laga dhisaayo muxuu ahaa baxdo laga dhisaayo wuxuu uu ku sugan yahay asaaskii iyo haddii laamyeeriga la saaray waa la isku daba taagnaa
waana midda lacagta badan noo keentay xaqiiqda marka wasaarad ahaan marka la yiraahdo yacni lacagtan badan oo kuu sheegayo waa noo soo hoyta aan leenahay oo waa noo shaqaynaysa waxay ka timid meelo shaqay waaye maaha lacag cirka ka timid oo ay kor ka keeneen yacni EU-da waxay fiiriyeen walaalo xisaabtama waa shaqaalo waxay arkeen meeshaan wasaaradda waxaa u badneed wasaaradaha naloo kasoo wareejiyey lacagta wasaaradda garsoorka marka halkana wax ka socotaa ay leeyihiin markaas lacagtii annagana waa sahlayna because iskoolaan noo dhismaayay waxbaa noo dhismaayay intay lacagtu xagga ku baari lahayd inay inta ka shaqayso ayaan ka shaqaynayn waxa keenay waxaasna waxaa ka mid ahaa dad xisaabtamaya wasaaradda dhexdeeda waan raacdayna meel qofaan raacdayna oo waddan ka raacdayna markay danaheenni ka soo horjeesteen marka waxaa waaye xisaabtankaas ayaa loo baahan yahay wasaaradduna waa u qaabaysneed shaqaalihii waxaa ka shaqaynayan weli waa joogaan mas-uuliyiinta hadda joogtana waxaan kula dardaarmaynaa inay soofo mariyaan shaqaalahaas saboorti gareeyaan shaqaalahaas saboortay u baahan yihin waa mahadsanti بسم الله الحمد لله قضية الشروع ذا وسيد وشيء وزير جودح فل أنا وأنا من سنة إلا دقن قليل طبعا قاركود دقن قليل تو ذا بعض وحبر شدة أنا لقى دقن قليل كريم كنت لو شيء قال طبعا لقى دقن قليل كريم هذا سوق قادد وحواي هولا شان الإيجار رايا وذياش اللو يرايا واوري شروع ذا sharciga gaar ka harsan aqalka sare hadduu maro waddanka sharci waxbarasho yeelanaya kuwa kalena dhaqan waxay nooga baahan yihiin inaan dhaqan gelino oo aan dul joogno qadiyaddan hay-adaha oo sida wasiir goodax ka dhawaajiyey annaga hadda waxaan u samaysanay education sector strategic plan oo 5 year 2020 aniga markaan tegey oo November aan wasaaradda la wareegay January guddigii sameyn lahaa barnaamijkaasaan magacaabay ilaa iyo sanad analysiga la sameeyey waddankana waa la soo maray kadib waxaa la sameeyey strategic balaankii oo 5 sano la sameeyey maanta marka wasaaradda waxay haysataa tool ninkii lacag bixinayo way dhahdo waxaana aniga aan rabaa kubkii baalkii maxaa la dhahay lacagtii ugu sii haddii kale iska soco soomaaliyana dejisay waagar Nairobi baa la tagi jiray waxa wax qandaraas lagu siin jiray waalkii maxaa la dhahay waxbaa naloo soo qorqori jiray laakiin hadda ma dhicin marka qadaayadkaas hadda waxaan u haysanaa baalkii maxaa la tuulkaas aan u haysanaa oo ay tahay in uu la iskaga celiyo assalaamu calaykum aad iyo aad baad mahadsantihiin aad baan wasiiradana aad baan uga mahad celinayaa runtii dood aad u qurux badan oo arrimo fara badan oo waayo aragnimo mug leh inoo soo kordhisay weeye aad baad mahadsantihiin idinkana aad baan iga mahad celinayaa